السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض هذا داود يا الملك صدق داون السن وبرنامج كني عاوز كعانكا iyo marti kale cusub barnaamijkeena caawiska caanka oo si toddobaad leh uga socotaan barnaamijna kala duwan aan ku leenahay socialka ee Nuuriye Media ku soo dhawaada caawiska caanka caawa barnaamijkan caawiska caanka waxa marti ku ah saaxiibkay oo marna walaalkay Sakiilkaas ugu horreyn ku soo dhawow Nuuriye Media iyo barnaamijka caawiska caanka waa ku dhaw walaal qaali aad baa mahadsan tahay barnaamijna ku dhawahay waana salaamayaa bahda Nuuriye Media aad baa mahadsan tahay saaxiib intaana horta halkan waxa ku diyaarsan su'aalo kala duwan oo barnaamijka caawiska barnaamijkan martii hore way ka soo qayb gashay oo ah shakhsiyaad kala duwan oo baraha kacaana aan filaynaa inaad adiguba aad ku aragtay internetka caawana adiga martii ku caaw lagu jafaya diyaar baa u tahay filay aad iyo aad walaal diyaar baan intaana barnaamijka su'aalaha inaan u guda gelin waxaan doonaynaa bal taariikh nololeedkaaga oo kooban inaad la wadaagto aniga iyo asxaabta kugu xidhan ama muuqaalka barnaamijka caawiska caanka daawan doonto waa sax ugu horreyn hadda aan ku bilaabo magacayga dadku sakiilkaas yaqaanaan magacayga saxda waxa weeye Sakri Cabdiqaadir Yuusuf ku dhashay Laascaanood dhashay 2002 ku barbaaray wax ku bartay Laascaanood intaana ku leekaaday ninkani jaamici weeye wuxuuna dhashay 2002 marka tirahaan imse noqonaysa waxaan naqanaysaa 20 jir waayahay aad baa mahadsan tahay haddaba saaxiibayaal ninkaas waa 20 jir ka adag bir aan aqli jir ka adag bir way barnaamijka su'aalaheena inuu galeynaa sakiilkaas sida wada ogsoonahay sakiilkaas kulley laba magac oo saaran bay dadku yaqaanaan magac iyo naanaysiisu ka raacdayba mise waa magac lagu wanqalay horta waa laba naanays oo isdul saaran mid horta waa magaciisa Sakriye oo la soo gaabay saka laga dhigay midna waa naanays oo waxay bixiyay saaxiibkay oo halkaan ka salaamayo Xaafid Khadar Cabaas bay bixiyay kadib labada naanaysood waa isku darsadayba tii saaxiibkay bixiyay tii kalaba magacayga ahayd marka sida meelkaha ku ka raacay mise ilko ka raaca ma garat marka magac wuxuu isku noqday sakiilkaas isku noqday marka halkaas ka yimid magacaas saas weey waayahay aad baa mahadsan tahay barnaamijkeenu ku soconaa su'aasha labaad ee barnaamijka waxaan wada ogsoonahay aaladda TikTok inaad caan ka tahay sakiilkaas waqtimaad bilowday inaad wax jisho horta caan ma kowde ayo wal anigu waxaan bilaabay TikTok ta 2020 way waqtiga soo baxday waan 9 ka soo baxdan filaya adigu 2020kiina waa bilaabay marka habsan baanay marka hal sano marka 20kii baad bilowday 20ka bilaawda way sidaan wada ogsoonahay 20kii baad bilowday 20kii 20kii iyo 20kii waa muddo adigu sanadkaad bilowday marka laga jiro waa 2 sano gudahood waxaad ku samaysay magac aad u weyn haday noqoto gobolada aynu joogno ee Soolsanaag iyo Cayn haday noqoto Soomaalida kaleba sidee bay kugu suurto gashay wallahi horta qofku markuu adigu TikTok soo galayo waxa fiican talent leeyahay dad baa wacdiga talent u leh dad waa aragtay oo caayda talent u leh ma garat dad waxa jira iska faniya aan horta isma ogeyn inaan fan yahay ma garat laakiin tijaabo aan wuxuun maalin iska tijaabiyay baan soo ogaaday inaan fan yahay marka waxaan u maleynaa inay intaas igu suurto gashay talentiga adigu iska faniga taasaan u maleynayaa taas ka dambeysay magaca walaal oo maleynayaa way markii aad ogaatay inaad talentigaas aad leedahay qormaan dhihi karnaa sakiilkaas uu ogaaday inuu dibajilin leeyahay ama inuu caan yahay gormaad ogaatay horta waxaad ogaan kartaa dadku waxay horta committee ka bixiyaan haddii wax ka khaldayin dadka ku sheegaya misi wanaag ku sheegaya iyo misi xumaan ku sheegayaba ma garat haday mata jilinkaagu xun yahay dadka ku sheegaya haddii jilinkaagu tob yahayna dadka ku sheegay markaan xilligan ogaaday inaan xaggan committee ku fiicanahay waa dadka ay sheegay committee-ga baan ka ogaaday markaan ogaaday horaan ugu socdayba tii baad bartaa caawa ka joogtaa magacaaga saxa waayahay aad baa mahadsan tahay su'aasha afraad ee barnaamijka kulley qofo
ku xidhan yahay ama uu taageeraa haddii la dhaho shakhsiyaadka caanka hadday tiktok noqoto youtube noqoto facebook noqoto yaad adigu taageertaa amaad ku dayata role modelku ah horta cid gaara horta ma taageero laakiin wax kasta qof kasta oo tiktok taageera oo komediyana waa taageera wax qof kasta oo iga qosliyana waa taageera laakiin runta waxaan de qof aan toos u taageero ma jiro qofaad magacaabi karto ma jiro aan toos u taageero ma jiro qof wuu jiraa oo aan fiidiyooshiisa ka helo laakiin xasuustaada marka waxaan dhihi karnaa hadba fiidiyowgii ma garanaysaa adiga kaa qoslin karaa maad ku taageertaa komediyana wataa waayahay aad baa umahadsan tahay su-aasha shanaad ee barnaamijka sakiilka case qofku markuu caan noqdo caqabado badan buu kala kulmaa caannimada markii aad intaadan caannimadan aadan caan noqon macnaha aad soo gelin aaladda tiktok iyo intaad hadda caanka noqotay maxaad nooga sheegi kartaa caqabadaha aad kala soo kulantay wakhtigaad soo gelisay iyo haddoo aad caan tahay wallaahi horta walaal farqi weyn baa u dhexeeya kowdhe markaad caanka ahayn meeshaad doontid baa mari kartaa waxaad doontid baad samayn kartaa iyo xor baa tahay laakiin maalinka horta anu hadda caan ma yihi laakiin markaad xoogaa yar caan iska yar dareentid ama caan waxa adigu ma garatay jeel yar baad gelaysaa jeel ay dadku arag baad gelaysaa suuqii ma marin kartid meel waxba kama soo qabsan kartid haddaa meel u baxdo isdhahdo bax dadku say kuu soo eegayan waxa muddo qof soo dilay oo la bursanaya saasaa lagu eegayayo gebigaaga waxa ku gelaysaa cuqdad nafs oo dadka maxaa jira ma garat marka farqi weyn baa u dhexeeya marka caanka aad noqoto xabsi ay dadku arkin baad gelaysaa danahaagii oo dhan ma fushan kartid meelaha mari jirtay ma marisid waxa doontid ma samayn kartid waa gebiga waa inaad ilaalisaa sixidhaa marka wataa maxay u sababeynaysaa talo inaad ilaaliso horta dee Soomaalidu waa iska dhib badan yihiin aad bay markaan iska dhib badan yihiin markan adiga aad iska qof normal tahay cid ku daba dhiganaysa ma jirto cid ceebaaga raadinaysa ma jirto laakiin maalinkaad wax yar noqoto naf kasta ceebtaada raadinaysa iyo xumaantaada raadinaysa adoo xumaanba samayn baa xumaan laga samaynayaa marka wallaahi caanimadu horta dhibaato weyn baa wallaahi leedahay aad baa mahadsan tahay barnaamijka haddaan ku sii soconno sakiilka case sidaan wada ogsoonnahay dadka soshaalka ku jira dhibaatooyin badan bay bahashaa kala kulmaan waa sida aad ka dhawaajisay adiga ahaan qof horta garab soo siiyey aaladda tiktok markaad soo gelisay ama baraha soshaalka aad saaxadda caannimada aad ku soo biiraysay kumuhaa qofkii adiga garabka kugu soo siiyey horta qofka horta ma ilaawi karo waa saaxiibka qaaliya oo mar hore halkan aan magaciisa ka xusay cabdixaafid qadar cabaase horta anu aaladda tiktok anaba aqoonba oo gurigayga iska jiifa buu ila yimi wuxuu waxaan tiktok baa la dhahaa waa wax soo baxday wax qof kasta oo taalentkiisa ku soo gudbiyo kowdhe aan bahasha duubno waa la eegay adigu ninkaas adigu garab weyn soo siiyey hadday tahay dhinaca imantan igu dhiirgeliyey hadday tahay xagga jilliinka hadday tahay xagga duubista hadday tahay xagga dhiirigelinta ninkaas halkan oo ka salaamaya aad baa u salaamaynaa aniga iyo asxaabta nagu xidhan sakiilkaas su-aasha kale ee barnaamijka jacaylka muxuu ka aaminsan yahay jacayl horta dadka qaybna jacaylku aaminsan yihiin qaybna ma aaminsana adigu kuway ka jirteen anigu waxaan ku jira kuwa aan aaminsanayn noo sababay jacayl horta jacaylka xilligu yimaado horta waa xilliga guurka xilliga guurku yimaadaa intaa wixii ka horeeya ka helid baa la dhahaa qofkan waad ka heshay kowdhe ee ma jeclid jacayl iyo ka helid anu hadda dadkan adigu dhahaa waas jecel waxaa khiyaali baanu arkaa waxay hadda ku jiraan waa ka helid waayo qofku berri shalay lahaa waan jecela buu maanta dhahayaa ifkan ugu necaba wixii maxaad ka helid bahayd shayba qofku markuu ka helo dee berrina wuu nici karaa sooma laakiin anu waxaan leeyahay jacayl ma aaminsani jacaylka aaminsanahay waa kan guurka dabadiisa ah waa kaa
adiga weli ruuxna ma ka heshay aniga waa ka helay laakiin ma si calfan ma si calfan ma calfan waayahay barnaamijkeennii baynu dhexda kaga sii jirnaa kulley shakhsiyaad kala duwan baa raba inay haddeen baraha ku soo biiraan oo saaxadda ama magac ka sameeyaan ama manfac ka sameynaya ama maal bal dadkaas fariintaad u diri lahayd maxay tahay horta dadka waxaan dhihi lahaa horta soo dhowaada kow meeshanna waxay horta idinka baahan tahay dulqaad waxaa lay samirkii dulqaadka wasal lagu ducaysto ruuxu eebba siiyana cidinkama sarrayso ma garat haddaad aaladdan soo gelaysid hal mid samee samir yeelo dulqaadna yeelo oo aaladaadan u samir dadkan ku caayaya ama mid waxarsa ku dhiirigelinaya waxaa arkaysaa ku caayaya intaasoo dhan u dulqaado laba shay waxaan kula dardaarmaya laba shay dulqaad iyo samir aad baa umahadsan tahay halkaas waxaa inoogu yara eeg qaybo ka mida su'aalihii barnaamijkii qaybo su'aalihii halkaas inoogu yara ka yahan waxaan u soo dhaadhacaynaa qayb jilliinka aaladda tiktok jilliin baad ku soo gudbisaa bal jilliinkaaga aad kuugu quruxda badan ama kuugu faniisan ee la wadaag bulshada noogu xidhan anaga haddaa isilowday soo wac naa maxaa jira midda kale indhihii waad qarsatay maxaa jira haddaa isku buuqday soo wac anaa ku dejinayay soo wac naadday faansii waxan macalin sharmaboy baa naga waalay oo yidhi meeshaad ka timi haddii aad ilowdo anaa ku xasuusinayay soo wac isoo wac oo muxuu idii dhiwaayey haddaad ilowdaa malcaamadii anaa idin xasuusinaya meeshay ku taalla isoo wac muxuu idii dhiwaayey macalin dee abdhayt iska dhig bal inoo dar waayahay maxay leedahay heestu haddaad isi weysay soo wac ana kuu sheegaayo meeshaad joogto haddaad isilowday soo wac anagaa iskuusinayo catoosh waan wada ogsoonahay inaad catooshiya maslaxuma garanaysaa aad saa'id ugu soo baxday aad kuna soo caanbaxday bal muuqaalkaasaan doonayna inaan noo jiro catoosh aan joognaa beerihii afkooyaan joognaa haye kan waa liin haye kaas waa cambe geedku wuu nawaalayaa waxyaalo kale ku jira maslaxo maxaa leedahay shacabka maxaa leedahay maslaxo kusoo dhawaada maslaxo maxaa leedahay shacabka maslaxo dhig maslaxo dhig aad baa u mahadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gunjii gabagabadii barnaamijka su-aasha ugu dambeysay barnaamijka asxaabta kugu xidhan iyo asxaabta annaga nagu xidhan iyo barnaamijka cawiska caanka iyo tiim nuuriya fariintaad nala wadaagso horta waan salaamayaa barnaamijkiina inuu sii gebagabayahay waa malaynayaa waxaan leeyahay intana daawanaysa iyo inta kalaba beeshkan ku soo biira intaan xaggee ka socota beeshkan iga aragtay waxaan leeyahay beeshkan flogareeya hadduu youtube yahayna youtube ka subscribe siiya haddii uu tiktok yahayna de meeshii niirada casayd waynu garanaynaa sooma aan meeshii niiray taabanno wabilaahi towfiiq barnaamijka cawiska caanka sidee u aragtay wallaahi horta waa barnaamij aad looga baahnaa horta waa soo dhaweynayaa de waxaan u maleynayaa inaad dad badan uga faa'iidayn doontid ma garat waayo bulshadii baa mataqaan isku dhex galaysa isku fahmaysa marka barnaamijkan aad baan u soo dhaweynayaa aad baa umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa martida barnaamijka cawiska caankaase kiilkacase waa kaaga mahad celinaynaa ogolaanshahaad naga ogolaatay inaad barnaamijka kugu soo martiqaadno barnaamijkan oo ah dhifya naadir inaanu ku soo martiqaadno shakhsiyaadka caanka baraha bulshada hadday noqoto tiktok youtube facebook maanta waxaa intaas nagaga eeg barnaamijka cawiska caanka oo toddobaadkan martuu ku ahaa walaalkay marna saaxiibkiisa kiilkacse tan iyo intaan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga teganaahe waxaan kaga tagnaa asxaabta wabilaahi towfiiq aad baa umahadsantihin daawadayaal